taariikhdu tahay bartamaha bisha 6aad sanadka 2026 waxaan halkan ku bayaaminayaa isbeddello iyo go'aamo ka soo baxay raxanta ilaalada cirka ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee aagga xuduud xeebeedka gacanka Berbera waana sidan. 1 qaybo ka mid ah difaaca cirka ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee aagga xeeb iyo guban ee u dhow badda waxaa loo bedelay ilaalada cirka ma aha ciidanka cirka ee waa ilaalada cirka Air National Guard oo la mid ahaan doonta ilaalada xeebaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kale iyadoo raxan ka mid ah ilaalada cirku ay horeba u haysay heeganka cirka oo 24 saacadood ah taasi oo fudaydisay ilaalinta madaxbannaanida ciraad ee dalka iyo air navigation-ka la socodkooda ee xuduudaha xeebaha dalka oo ah mid ka mid ah soonayaasha Afrika iyo bariga dhexe ugu mashquulka badan muddooyinkan dambena uu kordhay navigation-ka diyaaradaha ciidan ee badda dul maraya. 2 airportka caalamiga ah ee Berbera International Airport oo marka horeba ahaa joint ay wada isticmaali karaan civil military aircrafts labadaba uu isaguna sidiisii u shaqayn doono balse improvement dhanka SOP-ga ah lagu samayn doono iyadoo ilaalada cirka ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay tayeen doonto una madax bannaanan doonto hawl kasta iyo mashruuc kasta oo taabanaya arrimaha amniga iyo madax bannaanida qaranka loona deyn doono militariga Jamhuuriyadda Soomaaliland shaqadiisa taasoo macnaheedu yahay in 70% maamulka airportka iyo maamulka hawada ee aagaba lagu maamuli doono siyaasadda wasaaradda difaaca qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee hogaaminta xukuumadda wadajir iyo waxqabad. 3 qaybta free zone-ka oo ka kooban hal terminal storage facilities-ka kala duwan ee alaabooyinka fudud light commercial goods iyo heebada free zone-ka waxaa maamulkeeda oo ay ku jirto kharashaadka hawlsocodsiinta bixintooda waa qaybta free zone-ka waxaa u madax bannaanan doona kambaniga operate gareeya free zone-ka maadaama ay shirkadaasi haysato kiro lease muddo dheer ah oo ay hadda u harsan tahay 18 sano taasoo macnaheedu yahay in khidmadda kirada aan loo isticmaali doonin hawlsocodsiinta free zone-ka dhismaha iyo maintenance-kaba halka kirada uu bixiyo kambanigu 100% loo wareejin doono inay qayb ka noqoto miisaaniyadda hawlsocodsiinta amniga iyo difaaca qaranka iyadoo ciidanka qaranku hoos garan doono hawlsocodsiinta howlaha wasaaradda duulista maadaama air navigation-ku yahay hal shay oo ka kooban 2 component civil military cooperation. 4 Berbera International Airport asal ahaan waa airbase sidaana waxa uu ahaa muddo ku dhow hal qarni taasi oo ka dhigan in lahaanshaha ama ownership-ka uu leeyahay militariga Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo siyaasadda lagu maamulayana ay leedahay mas'uulna ka tahay wasaaradda gaashaandhigga iyo difaaca qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland halka wixii shaqo fulina executive ah ama hawlsocodsiin operational uu dastuurku siiyay ilaalada cirka ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. qodobka muhiimka ah ee halkan ku jira in badan hore loo dhifo waxa weeye cidda laga kireeyay qaybta free zone-ka ama kireysay waa militariga Jamhuuriyadda Soomaaliland ciidanka qaranka ayaana dhulkaasi ka tanaasulay xaqna u leeno kiradaasi maamulo si toosana gacanta loogu geliyo ciidanka qaranka ayaa sharciyan u waajibtay inay qaadaan maamulaan go'aankeedana yeeshaan khidmadda kirada 100% sidaa awgeedna kambanigaasi sidaas ayay ugu xalaaloobaysaa inuu qaybtaas airportka ka mid ah u isticmaalo howlaha commercial-ka ah ee ganacsi. waxaan maanta halkan ku caddaynayaa in 11 sannadood ee kiradaasi socotay aanu ciidanka qaranku helin khidmaddaasi balse sifo aan sharci ahayn ay qandaraaslayaal iyo kooxo dilaalina ay markaasi ugu kharash gareynayeen mashaariic airportka khuseeya isla markaana qayb ka mid ah kiradaasna free zone-ka lagu dhisay taasi oo ahayd in marka horeba kirada liiska dawladda loo shubo oo ay ku dhacdo bangiga qaranka dhismaha free zone-ka iyo airportka wixii kambaniga free zone-ka uu ka qabanayaan ay ahayd kharash isagu iskii u daboolayna inay noqoto. iyadoo ciidanka qaranka ay ahayd hay-addii sharciyan airbase-ka maamulkiisa lahayd sifo khaldan oo aan badi waafaqsanayn siyaasadda difaaca amniga qaranka ayaa loo gacan bidixeeyey khidmaddaasi waana qaabkan markaasi cusub waa habka
kambaniyada free zonku ay uga shaqeeyaan baysaska ay degan yihiin ama terminaal walba cidda ownershipka leh ayaa kirada loo shubaa isla markaa lacagta kirada laguma dhiso terminaalada lagumana maamulo airboardada tusaale ahaan waxaan u soo qaadanayaa waqtigii doorashada 2024kii waxaa lacag ku dhow $1 bilyan oo lagu bixiyey qandaraas ahaa calaamadaynta runway marking iyadoo aan la ogeysiin saraakiisha ilaalada cirka iyo militariga gobolka midnaba sidoo kale waxaa qandaraaskaasi lagu magacaabay in la siiyey shirkad ajnabi ah oon haysan endorsementka wasaaradda difaaca iyo ciidanka qaranka halka lacag bixintaasi aanay marin state financial institutionska dalka isla markaasina payment transferku uu ka dhacay dalka dibadiisa bangiyo ku yaala aakhirkiina aan ogaanayn lacagtaasi ahayd qayb ka mid ah khidmadii kirada qaybta airportka ee laga kireystay wasaaradda difaaca 5 laga bilaabo 26 Juun sanadka 2026 khidmadda qaybta kiraysan ee airportka Berbera waxaa ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland u qaban doona baanka dhexe Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana maamulkeeda iyadoo sida loo kharash gareynayo u madax banaanaan doona ilaalada cirka ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland si waafaqsan siyaasadda wasaaradda gaashaandhigga iyo difaaca qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo daahfuran ugu dambeyntii waxaan xasuusinayaa cid kasta oo ay si toos ah si dadbanba u khusayso sida saraakiisha hay'adaha laamaha dowladda Soomaaliland shirkadaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ahba iyo guud ahaan shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland in dhulkaas ka mid ahaan jiray airbase-ka ee u koreysan kambaniga commercialka ay hay'adda sharciyan sharci ahaan hore ugu lahayd ku shaqayn jirtay ka saartay operational and planning activities-keeda sii daysay leverage-ka ay dunida iyo mandaqadaba kaga samayn lahayd ay tahay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sidaas awgeedna kiradaasi ciidanka qaranka ayay waajibtay ma yeelan doono mana maamuli doono cid kale ha ahaato guddida aaga cashuuraha ka caagan boardka free zonka loo yaqaano amaba kambaniga qandaraaslaha ah ee loogu magacdaray Berbera International Airport Company amaba maamulka free zonka laftiisa waxaa xusid mudan in muddo 11 sano ay kooxo dilaalinaya qandaraaslayaal ay gacanta ku hayeen go'aankeedana lahaayeen maamulidda dakhliga qaybta free zonka airportka ee kiraysan in 11 sano aanay fulin badi qodobadii heshiiska hore loogu galay ee uu ku jiray dhismaha airportka Burco oo weli maqan in shacabka Soomaaliland lagu maawilin jiray dawlad heblaayo ayaa bari soo degaysa iyo cidba sax dambe Berbera imanaysa iyadoo aanay jirin siyaasad fiisiyada oo meel mar ah oo waafaqsan iskaashiga amni